Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Wadanka Jarmalka gaar ahaan Magaalada Dresden ee Bariga Jarmalka, maanta oo Sabti ah gelinkii hore nin Soomaali ah oo 2 sano jir ah ayaa wuxuu tareen dhexdiisa mindi qoorta ka geliyay nin kaloo Soomaali ah oo 40 sano jir ah. Mid ayaa dhaawac ahaa Isbitaalka ayaa la geeyay, halkaas ayuuna ku geeriyooday. Halkan waad nagala socotan waa YouTube ka deefsame iyo anigoo ah Ahmed Xasan. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Dadka qofkaad isfahmi weydaan ka dheerow islamarkaana noloshaada gaarka ku mashquul. Iska ilaali fadhi ku dirirka aan micnaha badan ku fadhiin iyo siinta jaanis badan aad siiso dadka qaar. Taasi waxay keeni kartaa inaad dhib badan ka badbaado. Dadkuna isma saarna, qof haddii uu wax geystana adduun iyo aakhiro asiga ayaa lagala xisaabtamaa. Soomaalida Jarmalkana ma qaadi karto mas'uuliyadda qof wax geystay, xataa dowladda Jarmalka ayaanan sidaas wax u eegin. Dalkan ku dhowaad 60,000 Soomaali ah ayaa ku nool. 9,000 wax gaaraya 6 sano jir ayayba ka yar yihiin. Kuwa 15 sano ka yarna waa tiro kale, ayadana dumarka guud ahaan yaryar iyo waaweyn oo xataa carruur ay ku jiraan waa 20,000 wax u dhow. Raggana inta ugu badan waa kuwa xamaasha oo shaqaysta sharci ha lahaadaan ama yaysan lahaan, laakiin sidaas ayadoo ay tahay dad waddada ka leexday shaydaana qaaday way buuxaan. Tiradaasi yar ee falalka sidaanoo kale ah geysatana ma matari karayaan inta kale ee dhan. Sawirka waa goobta uu maanta Soomaali ku dilay Soomaali kale Magaalada Dresden ee Bariga Jarmalka. Eeben naxariistii janno ha ka waraabiyo marxuumka samir iyo iimaana Alle ha ka siiyo qoyska iyo asxaabtaba. Halkan waad nagala socotan waa YouTube ka deefsame iyo anigoo ah Ahmed Xasan.